iyadoo marba marka ka sii dambaysa ay soo xumaanayso xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay abaaruhu haleeleen ku nool gobolada bariga Soomaaliland ayaa haddana taas bedelkeeda waxaa barbar socda taakulaynta ay walaalahooda muxsiniinta u fidinayaan dadkaasi abaaruhu saameeyeen. Guddida abaaraha qaabilsan ee gobolka Togdheer ayaa maanta qadar lacageed oo dhan $5,000 waxay ka gudoomeen mas'uuliyiin ka socotay xarunta lagu xanaaneeyo carruurta ee urta heegan xafiiskeeda Burco, waxaana lacagtaas oo ay wakiil ka ahaayeen Fuusiya Janaale iyo Injineer Faarax Xuseen ay ku wareejiyeen guddida abaaraha ee heer gobol. anigoo ku hadlaya magaca urta heegan international ee Somaliland Togdheer magaalada Burco waxa aan ku wareejinaynaa guddida abaaraha heer gobol lacag dhan $5,000 oo ka yimi urta heegan international Norway chairmankiisa Dr. Ali Lindstad isagoo ka damqaday dhibaatada haysta dadkeena iyo dalkeena iyo abaaraha ku habsaday ayaa waxa ay garteen inay soo diraan lacagtaas inkastoo aanay ahayn lacag badan haddana waa shakhsi islaam ah oo doonay inuu dadkeena wax taro. waxaan tagnay Burco to ilaa Caynaba iyo jiida u dhaxaysa Qoryaale iyo muxuu ahaayeen Kirid Wadaamago iyo jiidaas walaahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uma dadka umba caawin kara gacan bilaad maxaa ma caawin karto. Fuusiya Janaale waa nagu wareejisay lacag $5,000 ah iyo Injineer Faarax Xuseen Axmed oo ka wakiil ah Dr. Ali oo ay yihiin xafiiska Burco ururka urta heegan iyo xafiiska international ka ah urta heegan oo Faarax ka wakiil yahay. labadoodaas oo socda waxaan ka wareejinay lacag $5,000 ah oo Dr. Ali uu soo diray mas'uulka ururka ah. waxaan ugu talagalay lacagta doctorku in lagu saacido ama wax loogu taro dadka tabaalaysan ee abaaru tabaaleeyeen oo ay runtii Fuusiya iyo Faarax kormeer ku soo sameeyeen meelo badan oo kamid ah sida sheegeen. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.